maxkamadda gobolka Maroodijeex waxa ay maanta xukun ku riday jaraa'idka Foore oo ka soo baxa gudaha magaalada Hargeysa waxaana ay ku xukuntay hal sano oo ay kala noqotay ruqsadii uu kaga shaqeynayay gudaha Soomaaliland iyo waliba 3 milyan oo lacagta shilinka Soomaaliland oo lagu ganaaxay. haddaba waxa TV-ga Universal si khaas ah uga waramay xukunkaasi maanta ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku xukuntay ku-xigeenka xeraalyaha guud ahna madaxa xafiiska xeraalinta gobolka Maroodijeex Mawlid Cabdi Muuse Maaxa oo iyadoo xeraalintani dacwadda ku soo ogtay jaraa'idkaasi. saaka maxkamadda gobolka Maroodijeex waxay ku dhawaaqday dacwad lid ku ahayd wargeyska Foore waxaana ku heesnaa labadeed sano maxamuud Yuusuf ilka case iyo Cabdirashiid Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Ibrahim mid wala xukumay oo waxa ku xukumay 3 milyan oo ganaaxa waxa kale oo xaashada ee lagu waayay dambigii Cabdirashiid Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Ibrahim waxa kale oo saaka go'aanka maxkamadda soo baxay in muddo hal sano أنا ورجيس كفارة أنا صباح كنتي بريهن إلا لابد يكون يلحي تونكي إلا لابد يكون يستوي تونكي لابد يكون يسقى عليه تونكي واحد المحكمات قبل كمرتشيح وجد بيني لح تعودود والبريهن بكسوجيني إن قان ملاصة صار ملارة قاتشيو لما تعودها السنة وحي سكوتشرا تعودات أشخاص قارئ كسو تعودين يدعوده قرن كل بنكها runtii wargeyskaasi mudooyinkii ugu dambeeyay waxa uu bareed si cad oo bareed ah uu u propagandinayay uguna xadgudbaya hay'adaha dawliga ama institutionada qaranka isagoo inta badan dhaqan ka dhigtay inuu faafiyo warar been abuur ah oo aan si leeyahay toona lahayn. محمود عبدي جامع حوتو قدوميها ururka suxufiyiinta madaxa banaan ee Soldier oo warbaahinta la hadlaya sidoo kale isagu dhinaciisa ganafka ku dhuftay xukunkaasi iyo waliba ganaaxaasi ay maanta maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku riday jaraa'idka Foore ka soo baxay gudaha magaalada Hargeysa. maanta steedii subaxnimo ayay maxkamadda gobolku gashay gabadii dacwadaasi ama ku dhawaaqida xukunkii dacwadaasi wargeyska Foore oo laba fadhi oo hore lagu dhageystay dacwadaasi runtii go'aanka maxkamadda ka soo baxay wuxuu u dhignaa laba arrimood oo kala ah ku ganaaxay xukun ah 3 milyan oo shilin oo ganaaxa iyo sidoo kale in muddo sanada wargeyskaasi xayiraad maxkamaddu ay saartay hanaanka dimuqraadiyadda iyo hanaanka xorriyadda qowlka iyo madaxbannaanida Soomaaliland maadaama oo runtii wargeyskaasi xayiraad la saaray sidoo kalena ganaax la saaray anagoo ku qanacsan runtii dhibaatada waddanka ka taagan oo ah in saameyn badan saxaafadii ay xukuumaddu ku samaysay in haddana aanu ku qanacno runtii in culayska intaa leege soo food saaray maanta wargeyskaasi Foore iyo guud ahaan saxaafadda Somalilandba uu yahay mid runtii aanu ka cabanayno oo aragno mid lagu mijaxaabinayo ama mid albaabada loogu laabayo runtii mihnadiisa sanaa in la bilaabo qaadashada kaarka xubinnimada golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo shirweynihiisii lixaad ka furmi doono magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana ka soo xaadiray xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi iyagoo doonayeen inay qaataan kaarka xubinnimada golaha dhexe waxaana faahfaahin ka bixiya bilowga hawshaasi gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa iyo yaha golaha dhexe ee kulmiye Mustafa Waxdad shaqada qaabad si wanaagsan bay noogu socotay saaka oo ay bishu ahayd 10kii bishii labaad 2019 ayay noo bilaabantay maalin walbana waxay bilaabi doontaa 8 aroornimo ilaa 12 duhurnimona way socon doontaa hadii ay yiraahdo hawluhu waxay socon doonaan ilaa bisha 19keeda ayay socon doonaan hawluhu oo kaar qaadashada iyo sawirrada iyo leysasku ay halkan xarunta dhexe ee golaha xisbiga ayay ka socon doonaan xisbiga kulmiye saasayna ahaan doonaan dhammaan waxaan la socodsiinayaa xildhibaan golaha dhexe ee xisbigu in ay bisha 10keeda ilaa 19keeda ay kaar qaadashada iyo leysasku ay noo socon doonaan hadii ay yiraahdo kasta oo golaha dhexe ku jira oo xisbiga kulmiya dhaato la raacaa buu leeyahay
qof kastaaba lambar buu leeyahay sawirkiisii baa yaalla magaciisii baa yaalla kaadh lambarkiisii baa yaalla kaas ayuun baanu haddana ka saxaynaa liiska dabeetana aanu ugu samaynaynaa kaadhka cusub ee uu shirka golaha dhexe lixaad ee boorame kaga qaybgeli doono guddoomiyaha idiin sheegay inaynu saacaddii 8 saaka bilownay shaqada maalin walba 10 cashe soo socda 8 ilaa 12 ayaanu shaqayn doonaa waxaanu dhammaystiraynaa kaadhadhkii lagu geli lahaa shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee ka dhici doona boorame 23 bisha ilaa 24 waa mahadsantii dalka Mareykanka lagu qabtay shirweynihii culimada dawlad deegaanka Soomaalida kuwaasi oo baaq u diray madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo sidoo kale cabasho ka muujiyay culimada u diin la xirxiray iyo masaajido albaabada loo laabay haddaba culimo iyo waxgarad ayaa shirkan ka hadlay hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waa inay ka waantoobaan ficilada xunxun ee ay kula kaceen culimada DDS sida xabsiga jirdilka iyo caburiska labo sida uu u maamulay madaxweynuhu xafiiska arrimaha diinta culimadu waxay u arkaan in aysan sax ahayn khaladna ay tahay waana in uu ka noqdaa sida ugu dhaqsaha badan gacan u gelinta deegaanka al-shabaab iyo daacish gacanta culimadana waa in uu dib ugu soo celiyaa saddex waxaan ku talinhaynaa oon soo jeedinhaynaa xukuumaddu in ay wax ka bedesho qaabka loo magacaabay xafiiska arrimaha islaamka haddii wax laga bedeli waayo waxay keeni kartaa fawdo iyo isku dhac diimeed maadaama loo dhiibay dad aan ahal u ahayn afar waxaan wax la aqbali kara ahayn in uu madaxweynuhu la shiro koox gaar ah oo uu gacanta u geliyo dhammaan mas'uuliyaddii ay lahaayeen dadka muslimiinta ah ee ku nool DDS heer degan ilaa heer degmo shan waa in gacanta culimada dib loogu soo celiyaa masaajidadii xoogga looga qaaday inta uu maamulkani jiray kuwa xidhan ee qufulku saaran yahayna waa in shacabka iyo culimada loo furaa gacantoodana dib loogu soo celiyaa ugu dambayn waxaan u sheegaynaa dhammaan muslimiinta sunniga ah ee ku nool daafaha adduunka khaasatan ummadda Soomaaliyeed in ay culimada gobolku ay bari ka yihiin shiico wahaabiyo itixaad takfiir daacish iyo al-shabaab ciddii ugu xurmada badneed ummaddan ugu wanaagsaneed ummaddan hogaaminta ilaa iyo waqtigii nebi maxamed uu diinta keenay ummaddan soo hogaaminaysay in maanta iyagii cadaalad darro lagu sameeyo dad kalena cadaalad loo daydayaayay arrin aad u adag weeyaan anu waxaan aad uga xumahay maanta masaajidda inta laga qaado culimadii joogtay oo hooyadii hooyadayba meherisay war diinta cusub diinta kale lagu bedelaya xagee ka imanaysa culimadii hore waxa la leeyahay waa kufaar waa gaalo waa muxuu ahaa waxa la leeyahay waa shiico diinta cusub iyo culimada cusub ee timid waa tahay marka ee lagu bedelaya iyaga madaxweyne waxaan uga nasaxaynaynaa takliilka shanaad dadka uu soo cadaabay jahannam uu soo kabaday waxaan u baahanahay inuu nasto dadkii oo naxariis iyo muxuu ahaa waxoogaa tuscaanka u helo laakiin inuu bari qarax Soomaaliya ka socdo inuu ka bilowdo waa nasiib darro weyn asagoo maanta la qaban karo asagoo maanta banaan la iska marin karo waxaan walaalkan ugu nasaxaynaynaa inuu arinta ayada ka feejigaado caleema saarayay ugaaskii kontoniya afraad ee ay yeelato mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulka magaalada Diridhaba oo noqonaya ugaasiyaad Daawud Cumar ayaa lagu qabtay magaalada Diridhaba waxaana munaasabadii caleema saarkaasi ka soo qayb galay badi madax dhaqameedyada Soomaaliyeed oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho Garowe Hargeysa iyo magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dawladda deegaanka Soomaalida heer gobol ilaa heer degmo iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda dawladda Itoobiya salaadeen cuqaal culumaa diin waxgarad dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo tiro badan ana goobtii munaasabadani ka dhacaysay oo ahayd garoonka kubadda cagta ee ismaamulka magaalada Diridhaba lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqan sida ciyaaraha ciisaha canfarta Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ay Soomaalida wada degaan
ciyaaraha ay gaarka u leeyihiin. ciidamada baamboyda ayaa iyaguna sidoo kale gaadaka ciyaar iyo tumista baamboyda ku soo bandhigay fagaarihii ay ka socotay munaasabadaasi. dhalinyaro ku gaashaaman gamaanka fardood ayaa iyaguna halkaasi dhoolatus ku soo bandhigay, waxaana dabaaldeg caleemasaar iyo hambalyo iyo farxad ay hawada isu marinayeen. kadib halkaasi hadalla ka soo jeediyo isugu jira duco, dardaaran iyo waano qaar ka mida madaxdii dhaqanka ee ka soo qayb galay munaasabadan caleemasaar. ugaasiyaad daa'uud cumar: ugaaska ilaahay xilka ha ku asturo. ugaasku xil weyn buu qaaday. marka hore salaadiinta in ducadooda la aqbalayo habaarkoogaba waa la aqbalaa. beesha gurguro waxaan leeyahay ugaaska aad soo doorateen wuxuu idin yidhaahdaa inaad aqbashaan si ducadiisa aad u heshaan. mar haddii la boqray samadaa laga boqray. ka hadlaya marka hore afka guddidii ka timid Somaliland, kuna hadlaya afkooda iyo afka shicibkii iyo dawladdii reer Somaliland, waxaanu leenahay hambaliyo. sidii aan u soo duubanay oo qabiilku u keenay kii ka soo baxa Allah ka dhigo. kii ka soo baxa xilka la saaray maanta oo culayska badan oo inteero qoomiyada iyo inteero Soomaaliya isugu imaatay, Allah u sahlo oo Allah u dhib yareeyo. anagu haddaan nahay odayaashii jigjiga gogol baanu dhignay si degdeg ah u dhaci doonta hadduu ilaahay yiraahdo oo labada beelood ee gurgure iyo ciise aanu u dhignay. insha Allah arintaasna xilli dhow ayay dhici doontaa. dhankooda waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamuud Xuseen oo ka wakiila xukuumadda dowladda deegaanka iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Cumar iyo maayarka ismaamulka degmada Diridhaba Ibrahim Cumar. anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay xafladan quruxda badan leh lagu caleemasaarayo ugaaska waa xafladihii naadirka ahaa ee ka dhici jiray deegaankeenna. maantana waxay ka dhacaysaa magaaladeenna Diridhaba ayay ka dhacaysaa. waxaana leenahay ugaaska la caleemasaarayo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdo ugaaskii nabadda wada noolaanshaha. 3 askari ayaa ku geeriyootay 10 kan dhaawac ayaa ka soo gaaray markii ay burburtay diyaarad nooca helicopter-ka oo ay lahaayeen ciidamada Itoobiya qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay koonfurta Suudaan. diyaaradan ayaa ku burburtay saldhigga ciidamadu ay ku lahaayeen gobolka Abiy oo ku yaala xadka kala qeybiya koonfurta Suudaanta waqooyi Itoobiya. xilli ay ciidamadu ka soo duulayeen deegaan lagu magacaabo ka dulkii dalka Suudaan lamana ogaa sababta keentay shilka, balse taliyaha ku-xigeenka howlgalkaasi Major General Geb waxa uu sheegay in ay baarayaan shilkaasi sababta ka dambeysay. war ka soo baxay howlgalka Ansifa ayaa lagu sheegay in diyaaraddu ay saarnaayeen 23 qof, waxayna sheegeen in 3 ka mid ah ay dhinteen, 10 qof oo kalena dhaawacyo adag ay ka soo gaareen shilkaasi diyaaradeed. Itoobiya ayaa dalka koonfurta Suudaan waxaa ka jooga 4500 askari kuwaas oo qayb ka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay.